Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhammaan daawadayaasheena sharafta leh ee ku xiran janalkeena. Qisada aan muuqaalkan gudihiisa uga hadli doono waa qiso ka mid ah qisooyinka asxaabtii nabigeena Muxammad calayhi salaatu wassalaam. Waa qiso ku saabsan nin ka mid ahaan jiray mushrikiinta hogaamiyaashooda, kaasoo ay saxaabadii nabiga sallallahu calayhi wasallam ku xireen masaajidka dhexdiisa, oo kadibna alle uu hanuuniyey subxaanahu wa tacaala. Waxayna qisadu ka bilaabanaysaa sanadkii 6 ee hijriga, markii uu nabigu sallallahu calayhi wasallam bilaabay in uu waraaqo u diro qaar ka mid ah boqorradii Carbeed iyo weliba kuwo kale oo cajam ahaa. Waraaqahaas oo uu ugu yeerayay Islaamka. Dadkii uu waraaqaha u diray waxaa ka mid ahaa Thumaamatu ibnu Uthaalin al-Xanafiy. Wuxuu ahaa suldaan ka mid ahaa salaatiintii Carbeed, gaar ahaanna wuxuu sayid u ahaa Bani Xaniifa. Wuxuuna ahaa boqor ka mid ah boqorradooda oo aanan lagu caasinin amaradooda. Markii ay soo gaartay warqaddii uu rasuulku sallallahu calayhi wasallam u soo diray, ayaa waxaa qaaday kibirka iyo isla weynida. Markaas buu ka soo horjeestay oo xaqana iska dhega tiray in uu dhagaysto. Kadibna shaytaan ayaa ku waswaasiyey oo u qurxiyey in uu la dagaalamo nabiga sallallahu calayhi wasallam iyo saxaabadiisa. Kadibna Thumaama ayaa soo baxay isagoo isqarinaya si uu ula soo dagaalamo nabiga sallallahu calayhi wasallam iyo saxaabadiisa. Markaas buu wuxuu bilaabay in uu saxaabadii ugaarsado ilaa uu si arxan darro ah u dilay tiro ka mid ahaa saxaabada ridwaanullaahi calayhim. Markaas buu nabigu sallallahu calayhi wasallam banneeyey dhiiggiisa, oo saxaabadana ogeysiiyey in ay dili karaan. Iyadoo arrintaas aysan waqti dheer ka soo wareeganin, ayaa waxaa dhacday in Thumaama uu go'aansado in uu soo cumraysto isagoo haysta diintiisii jaahiliga ahayd. Markaas buu Yamaama ka soo baxay isagoo u jihaystay ama u socday Mako dhankeeda, isagoo ku haminayay in uu Kacbada ku soo tawaafo oo uu asnaamtii ku jirtayna uu xoolo u soo gowraco. Isagoo waddadiisa ku sii jira ayaa waxaa gacanta ku soo dhigtay sariyo ama koox ka mid ahayd asxaabtii nabiga sallallahu calayhi wasallam. Kooxdaas oo magaalada Madiina hareeraheeda ku gaaf wareegi jirtay cabsi laga qabay in uu cadow soo galo magaalada Madiino ama in lagu soo xadgudbo awgeeda. Kadibna kooxdii ayaa gacanta ku soo dhigtay oo soo kaxaysay iyagoo aanan garanaynin cidda uu yahay. Markaas baa lagu amray in ay ku xiraan tiir ka mid ah tiirarka masaajidka. Kadibna rasuulka sallallahu calayhi wasallam ayaa intuu soo baxay asxaabtiisa ku yidhi, atadruuna man haada? Ma garanaysaan cidda uu yahay ninkaani? Waxay dhaheen, maya yaa rasuulallah. Wuxuu ku yidhi, kani waa Thumaamata ibnu Uthaal ee wanaajiya maxbuusnimadiisa. Kadibna rasuulka ayaa intuu ciddiisa ku laabtay ku yidhi, isku keena waxaad cunto haysaan oo Thumaamaha loo diro. Kadibna wuxuu amray in hashiisa loo liso subax iyo galabba oo loo geeyo caanaheeda. Kadibna nabiga sallallahu calayhi wasallam ayaa u tagay oo ku yidhi, maa laka yaa Thumaama, hal amkana allaahu mink? Thumaamow, maxaad leedahay oo iska waran? Wuxuu ku yidhi, cindii khayr yaa Muxammad, in taqtulnii taqtul daa dam, faqad qataltu minkum, wa in tuncim calaa shaakir, وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت.
waan wanaagsanahay Muxammadow, haddaad disho waxaad dishay qof gacan ku dhiigle ah oo aniguba dad baan idinka dilay. haddaad iska kay cafisidna waxaad cafisay qofkuu mahadcelin doona. haddii aad maal iyo xoolo doonaysidna waxaad doontid sheego waa lagu siinayaa. markaas buu nabigu sallallahu calayhi wasallam isaga tagay ilaa laga gaaray maalinkii xigay. markaas buu u yimid oo ku yidhi, maa cindaka yaa Thumaama, maxaad haysaa Thumaamow? faqaal, maa qultu lak in taqtulnii taqtul daa dam وإن تنعم على شاكر وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. wuxuu yidhi, waxaan ku idhi haddaad idisho waxaad dishay qof gacan ku dhiigle ah. haddaad iska kay cafisidna waxaad cafisay qofkuu mahadcelin doonaa. haddii aad maal iyo xoolo doonaysidna waxaad doontid sheego waa lagu siinayaa. markaas buu nabigu sallallahu calayhi wasallam isaga tagay ilaa laga gaaray maalinkii xigay. markaas buu u yimid oo ku yidhi, maa cindaka yaa Thumaama, maxaad leedahay Thumaamow? faqaal, maa qultu lak in taqtulnii taqtul daa dam wain tuncim calaa shaakir wain kunta turiidu lmaal fasal minhu maa shi't. wuxuu yidhi, waxaan ku idhi haddaad idisho waxaad dishay qof gacan ku dhiigle ah. haddaad iska kay cafisidna waxaad cafisay qofkuu mahadcelin doonaa. haddii aad maal iyo xoolo doonaysidna waxaad doontid sheego waa lagu siinayaa. markaas buu rasuulku sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi, atliquu Thumaama, Thumaama ha la iska sii daayo. kadibna Thumaama ayaa soo baxay, wuxuuna u jihaystay geed timireed ku yaalay meel u dhow masaajidka xaggiisa. markaas buu soo qubaystay oo isa soo daahiriyey. kadibna masaajidka ayuu ku soo laabtay. kadibna wuxuu yidhi, ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan rasuulullah. waxaan qirayaa alle mooye ilaah kale in uusan jirin. waxaan kaloo qirayaa Muxammad inuu rasuul alle yahay. kadibna wuxuu yidhi, yaa Muxammad, wallaahi maa kaana cala alardi wajhun abgada ilaya min wajhik, faqad asbaxa wajhuk axabba alwujuuhi ilay, wawallaahi maa kaana min diinin abgada ilaya min diinik, فأصبح دينك أحب الدين كله إلي، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. والله محمد للك دشيس ما سارنين وجي أن كنعبا وجيغاغا. haddana wuxuu wejigaaga noqday wejiyada wejiga aan ugu jeclahay. wallaahi sidoo kale ma jirin diin aan ka necbaa diintaada. haddana waxay diintaadu noqotay dhammaan diimaha diinta aan ugu jeclahay. sidoo kale wallaahi ma jirin beled aan ka necbaa beledkaaga. haddana wuxuu beledkaagu noqday dhammaan deegaanada deegaanka aan ugu jeclahay. kadibna wuxuu yidhi, waxay ciidankaagu isoo qabteen anigoo doonayay in aan soo cumraysto. sidee baad u aragtaa? markaas buu rasuulku sallallahu calayhi wasallam u bishaareeyey, wuxuuna ku amray inuu soo cumraysto. kadibna wuxuu yidhi, waxaan dhiigooda daadiyey qaar ka mid ah asxaabtaada. haddaba maxaad igu xukumaysaa oo igu waajibay? kadibna wuxuu nabigu sallallahu calayhi wasallam ku yidhi, laa tathriiba calayka yaa Thumaama, fa ina alislaam yajubu maa qablah. wax dembi ah dushaada ma saarna Thumaamow, islaamku wuxuu tirtiraa wixii ka horreeyey, khayr ayuuna ugu bishaareeyey. markii uu Mako tagay ayuu Thumaama wuxuu la jahray ama kor u qaaday talbiyada.
kadibna Quraysh ayaa maqashay talbiyadiisa. Kadibna iyagoo yaaban oo argagaxsan ayay galka kala soo baxeen seefahooda. Kadibna waxay u soo wada ordeen halkii uu codku ka dhawaaqayay si ay u soo qabtaan. Markii ay u soo dhawaadeen ayuu codkiisa kor ugu sii qaaday talbiyada isagoona eegayay. Markaas bay dhaheen, ma dhici karto. Ninkan soo Thumaama ibnu Uthaalin oo Yaman boqor ka ahaa soo ma ahan. Markaas buu midkood ku yidhi, asabawta wa kharajta min diinika wa diini aabaa'ik? Miyaad gaalowday? Ma waxaad ka baxday diintaadii iyo diintii aabbayaashaada? Wuxuu ku yidhi, maya wallaahi, balse waxaan rumeeyey rasuulkii Alle sallallahu calayhi wasallam. Ilaah baan ku dhaartaye, ogaada, Yamaama idinkagama imaan doonto hal xabbo oo qamadi ah ilaa uu idiin oggolaado rasuulkii Alle sallallahu calayhi wasallam. Kadibna wuxuu reer Mako ka xayiray wixii Yamaama ooga imaan jiray oo ay ka heli jireen oo manfaco iyo raashin ahaa. Kadibna waxaa Quraysh ku dhacday macluul iyo gaajo aad u daran. Markii uu dhibaato ba'an u geystay oo ay dhibtoodeen, ayay Quraysh waxay waraaq u qoreen rasuulkii Alle sallallahu calayhi wasallam, iyagoo raximnimo iyo qaraabanimo wax ooga codsanaya. Waxayna u qoreen, waxaynu rumaysannahay adigu in aad qaraabada xiriirinaysid oo weliba aad dadkana fartid inay xiriiriyaan. Thumaama wuxuu inaga jaray raashinkeenii, dhibaato ayuuna inoo geystay. Haddii aad waraaq inoogu qori kartid, sidaas sameey si uu inoogu fasaxo raashinkeena. Kadibna Nabiga sallallahu calayhi wasallam ayaa rajadii ay ka lahaayeen qowmkiisa uga dhabeeyay, iyadoo weliba xilligaas lagu jiray xaalad dagaal oo u dhaxaysay Nabiga sallallahu calayhi wasallam iyo qowmkiisa Quraysh. Wuxuuna Nabigu sallallahu calayhi wasallam Bani Xaniifa sayidkooda Thumaama u qoray inuu qowmkiisa u fasaxo raashinkooda. Kadibna Thumaama ayaa fuliyay Nabiga sallallahu calayhi wasallam amarkiisa. Wuxuuna Bani Xaniifa u oggolaaday in ay dalagyadooda Mako u diraan. Kadibna waxaa ahlu Maka ka fuqday cabsidii ay ka qabeen macluusha. Thumaama wuxuu ahaa qofkii ugu horreeyay ee cunaqabatayn dhaqaale ku soo rogay mushrikiintii Mako degganayd. Ilaa laga yidhi waxay Quraysh gaareen heer ay cunaan geelka maqaarkiisa oo engegan. Dabka intay kor saaraan ayay cuni jireen gaajo iyo macluul awgeeda. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. fadlan daawadayaasheena ha iloobina muuqaalka inaad like saartaan oo aad la sii wadaagtaan asxaabtiina. haddii aad inagu cusub tahayna fadlan ha iloobin channelka inaad subscribe saarato si aad inoo dhiirigeliso, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga.